برنامج بانو كسي دحجنا إن شاء الله بوجا عدة أن سوق ذنين بنانكو يلا هلا سوق تو قيب كم يده أيان رمنا ويلير أو هل كان فديو بيز أو هل كان كجرا بيج كسب 1 محاوي 79 78 فيريا بدلا فيريا سور كان وحكا قرتان in 1964 Forrest shows a member of the Gage fighters ما أنت أيقو هرس ولي ما مغل بيج 78 نين كان هيسن بوق حقو يلا فضلا هلا سوقته هلا سوق هذا تاريخ بنقول نقول ناي marka waxaan rabaa ninka halka xilligaas aabihi dagaalamahay wiilkiisi Axmed Majarteen kaalay inaad laba kalmadood noo dhahdo ugaas Majarteen ma halka ka muuqdo de wiil markaan dhaho Axmed meel soo koro hayla dagaalina بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فغيرياشك هذا الكود اللي يقف يعني هاي سيدو داديهو شاقي أنا أحمد مجرتين بالله هذا وحان الشيء ساقو الدقال ودن كاسعوده وقادين يدو الدقال كاسعوده وأنا نقول هذا الشيء waxaan u malaynayaa inaanan saddex jirsanin markii aabbahay uu intuu iska dhaqaaqay uu qoriga qaatay ee uu jabhadda aaday aniguna markaa anu qabritaaraan ku dhashay laakiin markaa waxaan deganayn gallaadi meel la yidhaahdo ciddi garan baa garanaysa from that day laga soo bilaabo maalinka ilaa hadda dagaalkaas baan dabadiisa hayay anigu hadda ururkan la yidhaahdo Ogaden National Liberation Front baa anoo dhowr iyo 10 jiro ku biiray ilaa haddana waan ku jiraa dhammaantood salaf waan taagnaa doctorka isagoo saddex sano gaadhin markii la duqeynayay anuu wax garad baan ahaa waan joogay marka raggan isla soo joognay Dr. Ducaala ka mid ah دكتور عبد الرحمن بشير ونكذا ملاها تيفيديسا أنا وقد داودون كهلو قطبوين كيسا كميدا رجان هم لنا إن سكوح اللي يدونه هاي تاريخ ذو مهمة إيلاد هايبان إني شيء وحيا ركوبان مركز يوه الرئيسين قربان سوقلي أتيني ركبضانو هالكن فدي هاينو الشيء ملين ماي جيسك أفريقيا وحا لغا شيء أما لغا قرو أما لغا يرهدو نين أحمارا قرو جري نين أحمارا نوح لغا ويدين جري ناراتيف كوحا هذا أفكاد كفامتان قاب كشيكادا لو دغايو أما لو شيغايو iyaga siday jecel yihiin ee ay tahayba u sheegi jireen iyaga sida ay rabaan iyagu ay rabaan inay dunidu u fahamto waxayna u sheegi jireen dhulka dadka Soomaaliyeed degani inay reer guuraanimo ku yimaadeen oo iyagu ay dejiyeen dhulkan ayna lahayn asaaska ugu badan ee la isku haystay kaas waxa waligood iyagu maynan hadda dad waxaan arkaa yar oo oranay Ethiopian baan nahay oo Ethiopianimada ku faanayo Ethiopianimada aad bay ii dhibtaa sababtoo ah adigu waad dhihi kartaa laakiin ninka Ethiopianka rasmigii ma kuwa ogol yahay Ethiopianimo way horta waa maya waxa aad ku murmaysanad isku haysaana waa gurigaagiyo gurigiisii ma waxa uu rabo inuu ku sheegto wax waa gurigaagii uu kula degan yahay yu kuleeyahay aan wada yeelano kiisina uu haystaa Cabdirasaaq uu mahamsan yahay taariikh badan oo wax ka qoray oo cidina qorin baa jirta oo wax ka qoray aad buu ugu mahadsan yahay haddaynu Soomaalina haddii inagu aynan dunida u sheegin waxaynu nahay meeshaynu degannahay waxaynu leenahay dad baa inoo sheegi doona waxaynu nahay iyo waxaynu leenahay oo kuwii hore dhulkeenana waa la qalan maanta China USA Russia Turkey
intaba waxaa lagu loolamaya waa geeska africa wax kalena looguma loolamaya adiga dantaada maaha nin waliba dantiisu ku raadinaya taariikhda dhalinyaro ha la darso ha la akhriyo dib ha loogu noqdo walibana waxaad isku daydaan anagu jiilkayga halban ku guulaysanay markaan qurbaha soo galay xafiis walba oo reer galbeed oo la tago waagii hore markaad tagto oo aad tiraahdo ogaadayaan ka imid laba joos baad haysatay inaad tiraahdo etoobiyaan baan ahay iyo inaad tiraahdo jamhuuriyaddii labadii xortahayd mid baan ahay haddaad tiraahdo miihi aniga dhul la gumaystaanahay waxaa lagu dhihi calan haddaad haysan kuma aqaan laakiin maanta waxaa sharaf noo aniga iyo ragga la midka ah in xafiis kasta oo aad tagto maanta haddaad tiraahdo ogaadayaan ka imid inaan lagu odhanayno waa xaggee inaan lagu dhahayno ee la garanayo laakiin maxay u baahan tahay in halkaa laga qaado oo laga soo celiyo meeshii la geeyey ee hadda taariikhdii uu inii sheegaya walaalkeen ee ingiriisoon xaq u lahayn uu ku bixiyey in laga soo celiyo dadkii iyo hantidii iyo dhulkii lahaa dib loogu soo celiyo ininkaana laydinka rabaa waana mahadsantiin doctor waa mahadsantahay